الرحيم الحمد لله رب العالمين. shirkan jirayd wuxuu ku saabsan yahay magacaabista maanta ra'iisul wasaaraha oo magacaabay golihiisa wasiirada. annaga haddaan nahay maxaa la dhahay qowmiyadan digil imiriflaha waxaan wax ku qaybsan sideedaba waxa wax lagu qaybsanayay awood qaybsiga aan wax ku qaybsanaynay habkii loo qaybsanayay maxaa la kalama tashan xildhibaanada waxaad arkaysaa liiska wasiirka markaa fiirisid xubnihii annaga aan lahayn iyo wasiiradii iyo habkii loo qaybsan lahaa si qaldan ayuu u magacaabay ninkan lama tashan xildhibaanadii lama tashanin maxaa la dhahay guddoonkii baarlamaanka xataa guddoomiyaha baarlamaanka asagaa wixii federaalka mas-uul ugu ah qowmiyadan digil imiriflo awood qaybsi ahaan xataa kalama tashanin waxa waaye asaga keligiisa iyo qolooyin dana gaar ay ka wada dhexeeyaan oo ayay soo tashteen liisa la soo sameeyay liiskaasna liis noo cuntumaayo maba hab Soomaali awood qaybsi ay 4.5 wax ku qaybsatay 4.5 in wax lagu qaybsaday ahayd laguma qaybsanin wasiirada oo aan tayo lahayn ayuu si qowmiyadan digil imiriflah taasaan ka soo horjeednaa annaga waxaan matalaynaa waa shacabkeena waa shacabkii hadda waa ka dhiidhiyeen arrimahan hadda liiska la sameeyay shacabkii aan haysto waxay leeyihiin maxaa la leeyahay annaga nooma cuntumayso arrintan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ilaa 2020 laga gaarayna awood qaybsi wax lagu qaybsadaa awood qaybsi laguma qaybsanin qabiiladana lama tashanin xildhibaanada xataa lama tashanin qaarkood xataa waxa loo diiday albaabkiisa inay ka galaan waxaa jirto xataa guddoomiyihii baarlamaanka oo ahaa awoodii labaad ee Soomaaliya ugu sareysay xataa lama tashanin marka ra'iisul wasaaraha arrintan waa ku degdegay liiska wasiiradana waa aragnay uu soo saaray annaga hadda waxaan ku mashquulsanaa annaga xildhibaano badan Baydhabo aan joognaa xaalad adag ka jirta Baydhabo maanta waxa soo gaaray 320 qof oo ka soo barakacay deegaano shabeellada hoose kamid ah diinsoor iyo qasax dheere dadkaasaan aan ku dhex jirnaa dadka xataa oo asaga wasiirnimada oo liiska uu ku soo daray dad u qalmo maaha dad aqoonteedana lamaha qof walba professionkiisa in lagu xishmeeyo haddana sideedaba maxaa la leeyahay wasaaraddan maaliyadda waxa iska lahaa waxa waaye qowmiyadan digil imirifla iska lahaa qofku doono oo xildhibaan u qalmo aqoonteeda in la siiyay ahayd waxa maxaa la leeyahay lama siinin wasiir qolooyinka kale waxa waaye wasiiro waxaad arkaysaa qabiilo badan oo wasiiro loo kordhiyay arkaysaa dadkii say wax wada qaybsadeen waxa waaye waxay wax ku wada qaybsadeen markay deegaanadooda ay joogeen awood qaybsiga ku qaybsadeen awood qaybsiga ay ku qaybsadeen looma tixgelinin 4.5 kii looma tixgelinin awood qaybsiga looma tixgelinin markaan liiskaas oo hadda la soo saaray golahaas wasiirada annaga waa ka soo horjeednaa ka qowmiyad ahaan aniga keligayga maaha aniga waxaan ahay afayeen oo 61 xildhibaan oo ka socda maxaa la leeyahay qowmiyada digil imiriflaha oo hadda shir u socda markaan wixii jawaab ah waxaan bixinaynaa maalintii la horkeeno golaha shacabka ayaan ka bixinaynaa arrintaas waa arrin lagu degdegay haddana dadka la magacaabo dad oo xaaladda hadda taagan wadankan dhibaatadiisa samata bixin karna maaha ummadan waxay u baahan tahay badbaadi u baahan tahay maxaa waa dad lagu keenay dad ay maxaa la leeyahay ay xiriir wada lahaayeen ama saaxiib ay ahaayeen ama isku jufo yihiin ama ay soo dhow yihiin ayaa waxa iska dambeeyay waxa waa xaaladaas annaga ma anfacayso inaan qaadano waan sugaynaa golaha shacabkan ku sugaynaa waa qaadacnay haddaan nahay xildhibaanada qowmiyada digil imirifle jawaab kululna waa ka bixin doonaa haddana waxaan ku sugaynaa maalinta ansixinta ayuu arki doonaa jawaabta uu ka heli doona cid uu la tashtay male xildhibaan lama tash xildhibaanada qaarkood albaabkiisa ka soo reebayay dadka ay yaqaanaan oo asaga is garanayaan ma dadka xataa albaabkiisa ma galeenin awlaaba ku qaldan anaga waxaan u maleynaa in ummadan uu samata bixinayo ra'iisul wasaaraha uma ekanin samata bixinayo waa nin jeclaysi dadku keenay waay